xaaladda magaalada waxaa la geliyey bandow ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala duwanna waxa ay wadaan baaritaano xoog leh oo ay ku sugayaan amniga magaalada iyo weliba hareeraheeda. xaaladda magaalada Baydhabo oo caawa markaasi weji cusub yeelatay iyadoo caawa gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo aad u culus oo markaasi ay sameynayaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Banaanka hore ee magaalada Baydhabo caawa waxaa la wareegay ciidanka gorgor, booliis militara, haramacad iyo kuwa markaasi booliiska ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sheekh Aadan Madoobe hogaamiyaha markaasi dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo markaani u go'aansaday in uu magaalada Baraawe ee caasimadda koowaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya uu u guuro haddii markaasi magaalada Baydhabo ay ka maaran weyso in maalin kasta oo markaasi ka qarxo dagaal aad u culus. xal waara haddii loo heli waayo dagaalka ka socda magaalada Baydhabo, Aadan Madoobe ayaa go'aan wax uu ku gaaray in uu markaasi ka badasho caasimadda markaasi magaalada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Baydhabo. waxaan kula wadaagi doonaa markaasi Aadan Madoobe oo caawa markaasi go'aan la yaab leh gaaray dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. taliyihii hore ee ciidanka markaasi asluubta Soomaaliyeed shub oo isaguna abaabul xoogan ka wada duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dagaalka ka socday magaalada Baydhabo waxa uu yeeshay markani wejiyo cusub waxaana haatan ku soo biiray taliye shub oo markaasi abaabul ciidan ka wada duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. saacadihii ugu dambeeyay gudaha magaalada Baydhabo waxa ku qulqulayay markaasi wufuud kala duwan oo markaasi heer caalami ah kuwaas oo markaasi ay ka mid yihiin hogaamiyaasha markaasi Hirshabelle iyo sidoo kale maamulka cusub ee curdunka ah ee waqooyi bari ee Soomaaliya iyadoo markaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ee Soomaaliya Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo markaasi guud ahaan diiday inuu markaasi ka qayb qaato caleemasaarka markaasi ka dhici doono magaalada markaasi Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. xogahaas iyo sidoo kale xogaha markaasi nagu soo kordho ayaan idinla wadaagi doonaa daawadayaal. haddii ay tahay markaasi kugu horeysay aan soo boqoto fadlan YouTube-keena subscribe saar oo ka mid noqo saaxiibada nagu xiran. haddii aad horey nolol joogtayna muuqaalkan like saar siina share garay wixii fikirkaaga ahna qaybta hoose ee faalada noogu reeb. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale la jaanqaadkeena. mahadsanid daawade. waa hagaag aynu ku bilowno. xaaladda magaalada Baydhabo caawa mid aad u qasan oo jaam aad u xoogan ayaa ka jira. ciidan fara badan ayaa waxaa lagu arkayaa markaasi gudaha magaalada Baydhabo waxa ayna wadaan markaasi baaritaano ay ka sameynayaan qaybo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Baydhabo. ciidankan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in iyagu ay sugayaan amniga magaalada Baydhabo maadaama caawa Baydhabo ay ku soo hoyeeteen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan markaasi dowladda federaalka Soomaaliya, hogaamiyaal markaasi ka tirsan maamulada dalka ka jira, iyadoo maalinta berita ah galinka markaasi dambe lagu wado in magaalada Baydhabo uu ka dego madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi loo aseynayo in uu si toos ah uga qayb qaato caleemasaarka hogaamiyaha cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ninka lagu magacaabo markaasi Sheekh Aadan Madoobe. wufuud markaasi hordhac u ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey waxay u gaareen magaalada Baydhabo waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay halkaasi hogaamiyaha cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ninka lagu magacaabo Sheekh Aadan Madoobe. waxa iyaduna caawa magaalada Baydhabo ku sugan ninka lagu magacaabo Cali Guudlaawe oo ah markaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle. sidoo kale waxaa ku sugan markaasi ninka lagu magacaabo Cabduqaadir Axmed Caw Cali Fardhiye hogaamiyaha markaasi isaguna maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya. waxaa markaasi guud ahaan iska diiday caleemasaarka Aadan Madoobe inuu haatan ka qayb qaato ninka lagu magacaabo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor hogaamiyaha dowlad goboleedka Galmudug ee Soomaaliya. waxa uu ku sugan yahay
magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. qoorqoor ayaa lagu soo waramayaa sababta uu u diiday in uu ka qayb qaato markaasi caleemasaarka aadan madoobe in ay tahay. aadan madoobe markii loo doortay inuu noqdo hogaamiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, ninka lagu magacaabo qoorqoor ma uusan ka hadlin, ma uusan usoo hambalyeenin. marka waxa uu leeyahay ninaan anigu usoo hambalyeenin oo doorashadiisu aan ka hadlin sideen u tagaa caleemasaarkiisa, ceeb ayay ugu tahay. waxa uuna markaasi cudurdaar ka sameystay inuu ka qayb galo caleemasaarka markaasi ka dhiciya magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya. caawa magaalada bandow ayaa lagu soo riday galabnimadii casirka ahayd, salaadii casir markii laga baxay ayay ciidamada kala duwan ee ammaanka ay bandow ku soo rideen xaafadaha baydhabo. duleedka baydhabo waxaa caawa markaasi gacanta ku haya oo amnigeedu aad u sugaya ciidamada kala duwan ee markaasi ciidanka xoogga dalka. waxa markaasi ammaanka loo sugayo waxa waaye markaasi in laga hortago weerarada laga filan karo in ay soo qaadaan ciidankii taabacsanaa cabdicasiis maxamed xasan laftagareen oo ku sugan duleedka magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya. taliyihii hore ciidanka asluubta shub isaguna warkaasi waxa uu markaasi abaabul xoogan ka wadaa duleedka magaalada baydhabo, waxaana lagu soo waramayaa in ciidan fara badan uu markaasi ku diyaarinayo banaanka magaalada baydhabo oo caawa ay ku sugan yihiin ciidanka markaasi kala duwan ee qalabka sida. shub oo markaasi xiriir dhowlo la ah cabdicasiis laftagareen ayaa lagu soo waramayaa in haatan dagaalka uu si toos ah ugu soo biiray abaabul xoogan oo markaasi looga soo horjeedo maamulka cusub iyo dowladda dhexe markaasi uu ka wado magaalada baydhabo duleedkeeda. halkaas ayuu waxa uu ku diyaarinayaa markaasi ciidamo cusub, waxa uuna doonayaa markaasi in weerar uu kasoo qaado magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya. aadan madoobe caawa markaasi go-aan culus ayuu gaaray oo waxa uu leeyahay haddii xaaladda magaalada baydhabo xal waara loo heli waayo, guud ahaanba caasimadda baydhabo waan ka wareejin doonaa oo waxaan u guuri doonaa ayuu leeyahay magaalada baraawe ee caasimadda koowaad ee koonfur galbeed soomaaliya. haddii baraawo ay suurtageli weyso in markaasi maamulka aan anigu mas-uulka ka ahay laga soo hogaamiyo, magaalada labaad ee markaas uu qorsheynayo aadan madoobe ayaa xogaha iyo macluumaadka aan helayno waxa ay warinayaan inay noqon doonto magaalada waajid ee gobolkaasi baay. labadaas magaalood midkood ayuu markaasi aadan madoobe ka dhigan doonaa markaasi magaalo madaxda markaasi koowaad ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya, iyadoo maamulka koonfur galbeed magaalo madaxda ama caasimadda koowaad ay tahay magaalada baraawe ee markaasi caasimadda rasmiga ah ee koonfur galbeed soomaaliya. caleemasaarkiisa ayaa lagu wadaa in maalinta birita ah iyo wixii ka dambeeya uu ka dhaco magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya. culeysyo xoogan ayuu la kulmayaa. waxaan la hadalnay qof goobjooga ah oo markaasi inoogu waramay xaaladda ay ku sugan tahay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya. waxa uuna markaasi inoogu waramay sida tan.